السلام عليكم ورحمة walaalkay caafimaadku waa waxa ugu qiimaha badan ee dadka caafimaadka qaba madaxooga saaran waa taajka madaxooda saaran waxaana u jeedo fiirsanayo arka dadka xanuunsan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu noo sheegayaa in kalaamullaahi uu dawo yahay in quraanku uu dawo yahay marka quraanka laga yimaadana waxaan maanta ku tilmaamayaa suurad khaas ah suurada iyada hadad laazinto haduu xanuun ku hayo hadad u baahanto inuu iimaankaagu ziyaado hadad u baahanto in shubha iyo shubahaad uu qalbigaada ka baxo nifaaq inuu qalbigaada ka baxo hadii cudurro cudwi ah oo muuqda ay ku hayaan hadii cudurro nifaaqa ay ku hayaan ducful iimaan haduu ku hayo dhammaan cuduradaas oo dhanba hiya shaafiya ida ka shaafinaysa hiya alkaafiya suuradaas ka kaafinaysa ibn qayyim waxa uu leeyahay muddo ayaa anigu xanuunsanaya waxaan joogay Makka xanuunka markuu iga tagi waayay baa waxaan soo qabsaday maa zamzam markaasaan ku akhriyay suuradaas markaasaan cabay markaasaan ka booday buu leeyahay markaasaan qof walba wax xanuunsan baa u tilmaami jiray suurada iyada xadiiskii ku soo aroortay saxiixaynka Abi Saciid al-Khudri radiyallahu ta'ala an ardah wa asaga ma arkay ku akhriyay ninkii sayyidul qawm wa asagii markii la qarinay ku akhriyay oo masku qarinay ku akhriyay markaaba uu ka booday ujuurta ka qaatay suurada iyada miya taqaana every day bad akhrisaa laakiin adigoo qafladaysan adigoo mashquulsan adigoo maqan bad akhrisaa waxaan rabaa inaan ku tilmaamo oo suurada aad celceliso oo ku celceliso oo u isticmaasho dhammaan xanuunadaada idil hiya alkaafiya way ka kaafinaysaa madax xanuun haduu ku iyada ka kaafinaysa calool xanuun haduu ku iyada ka kaafinaysa xoolo hadii ma taqaanad u baahanta iyada ka kaafinaysa iyada ayaa wax kasta ka kaafinaysa hiya alkaafiya suurada iyada ah ilaa markuu ka sheekeynay fi suurati al-hijr walaqad aataynaka sab'an min al-mathani walaqad aataynaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-'azim ayda markay fasirayna Abu Bakr Umar Ata Qatada عبد الله بن مسعود انت بوحى إليه سبع المثاني تضبط صار نقطة إلهي سبحانه وتعالى وشيغيو يا قرآن وين وسورة الفاتحة سورة أنكوس وضرهم وسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة داس كم مسجر بعد ما انت أخرسا ولقى انت كوبكو أخرسي وحاجر ولا فربضن او نمن رقاده او soo baxay intay malab iyo isugu qooshaan maalin kasta ay lacagtii xoolaha ka daldashaan uma baahnid dhakhtar aado uma baahnid wadaad telefoonkaas wuxuu ku dhahan ku akhrinay uma baahnid adigu isku akhri suurada isku akhri awlaadaada ku akhri naftaada ku akhri reerkaada ku akhri waa suurada ugu waaweyn quraanka kamid ah waa suurada lagu bilaabo waa wasfa waa tilmaan waa prescription daily uu qofku akhriyo 17 jeer qofka mu'minka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala 17 jeer laakiin markaad akhrinayso adoo salaada ku jira ma u niisata inaad caafimaado qof waxaad arkaysaa markii salaada laga baxayo imaam ii ducee sheekh ii ducee suuradu akhri uu ducada sheekh wuxuu ka weydiinay uu leeyahay caafimaad iyo hebel ba operation hebel baa xasan iduu uu leeyahay isla suuradu akhriyay baa ku dheer inuu caafimaad ku jiro war akhriso war xaaskaaga bar war reerkaaga bar waa taqaanay laakiin u isticmaal inaad isku daweyso oo antibiyootika iyo cirbadaha iyo kaniinada dabacris iska daa oo suuradan i'timaad ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caafinaya hayaka allah bayak salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh